kusoo dhawaada waa fantastic sports oo indhahayo idinkoo nabad qabtiin iyo anigoo nabad qababa intaba isku soo laabasho wacan waa tabintii ciyaaraha ka barateen fantastic bilowno horyaalka Premier League ayaa ka dhacay ciyaaro kulul oo caadiba ahayn ayaa la isku qabtay markay isleen City iyo Chelsea iyo United iyo Aston Villa ayaa ciyaaro kulul oo lama ilaabaan isbuucan ka dhacay ayaa laga adkaaday United baraja ku gashay Chelsea lafa loo garaacay ayaa labada kooxood wadkeeda ciyaarta ugu wanaagsan isbuucan ayaa sida tan u ciyaaray waa Mr Guardiola Mr Xiirane iyo tabaraha Chelsea ayaa noocaas kale Mr Tuchel City iyo Chelsea walla wacdara caadi heniga dheh inaba caadi ma ahan ayaa Ederson u hay portieriga City Walker iyo Stones iyo Laporte iyo Cancelo ayaa qadka difaaca wada ciyaarayay waa hadeetay City Mr Xiirane qadka dhax waxa ciyaaraya De Bruyne iyo Rodri iyo Silva xidiga reer Portugal afkoorna waxaa jooga Foden iyo Sterling iyo Grealish waa saddex Ingiriisi saddexdaba dalka Ingiriiska ay wada ciyaaraan waa saddexdooda qaranka Ingiriiska wada dheelaan ayo udilay Guardiola Mr Xiirane 4-3 wala ciyaarta caadi ma ahayn dhig kara ciyaarta caadi ma waa kulankii la wada sugayay maadaama oo ka tagay Chelsea portierigeedii caanka ah oo ka jira dhanka Senegal ayaa portieriga kale dheelay Rudiger iyo Thiago Silva iyo Sarna waxay dheelayeen qadka difaaca dhaxda waxaa jooga Azpilicueta iyo Kanté iyo Kovacic iyo Alonso ayaa qadka dhaxa u ciyaarayay maadaama oo Mr Tuchel uu dheelo 3-4-2 afkor waxaa joogay Pulisic iyo Ziyech iyo Lukaku xidiga ay soo iibsadeen Inter sanadkan lacagta caadiga lagu soo iibiyay tababarodan waa Tuchel Saul Saatiin boo waxay tashkiil u dhileen 4-3 adikarna 3-4-3 waatan oo naga muuqato waa 3-4-2 Lukaku ayaa ku dhilay Sterling iyo Foden iyo Grealish afkor waxay dhilay Manchester City ayaa gabi ahaan ciyaarta markay kaalinta kooda u kala baxay Ever ayaa kaalinta labaad daqiiqada 69 gool dhashay xidigeeda City De Bruyne ayaa u saxiixay gooshi koowaad ayaa ciyaarta ay ku naqatay ona 0 De Bruyne ayaa dhashay gool macaan markuu qadka dhaxa ka qaatay oo darbad la yaqaan kula qabtay ayuu gool ku saxiixay inaba caadi ahayn De Bruyne xidiga Belgium caadi maahan wallahi xidigan waa shidan yahay ani waa taageersanahay waa taawrni ugu sheegay ayuu gooshiisa ku dhashay daqiiqada 70aad ayay saas ku lahaatay City hal iyo ever markii Chelsea lagu soo garaacay gurigeeda kulankii hore ayaa kulanka labaadna loo biisay ayaa la garaa Guardiola iyo City way arteen finalkii oo looga bashay oo championka ee Chelsea ku badisay ayay gibi ahaan ciyaarta kusoo gabagabooday oona 0 waxaa kaloo ciyaarayna Newcastle iyo Watford baraje kale hal iyo hal Norwich iyo Everton Norwich ayaa badisay waxay ku badisay 2-1 Wolves iyo Southampton Wolves ayaa badisay 3-1 ay ku badisay Aston Villa iyo United iyo Ronaldo baraje galeen ay kan 2-2 Gerrard iyo Coutinho ayaa wacdara caadi ahayn tusay markoo daqiiqada 80aad inta ka dambeysay baraja degdeg lagu keenay kooxda United ee koo 2 gool leh ayaa lahay mustaxiil inay badisiin amal ayay gibi ahaan ku soo gabagabooday 2-2 horyaalka Ingiriiska dhanka iyo Serie A ciyaar kulay ka dhacda waa Inter iyo Atalanta ayaa isku helay bal wada daawano Inter iyo Atalanta tashkiilada uu ka wada ciyaarayeen bal la wada egno waa Inter Milan iyo Atalanta walla ciyaarta caadi ma ahayn ciyaar kulul ayaa eedna ka dhacaysay ayay sida tan u dhilay Gasperini waa tababaraha Atalanta 3-4-2 qadka dhaxa ayuu seeta u buuxa ku dhahay caadi ma ahan tababaraha oo Talyaaniga ciyaariisa u jecel waayo waa manaxa waa geesi yani waa nin oo waxba qorin ba aqsar ama guulaysto taagan yahay asagu markasta aniga weerarka jeclaa ciyaarta in awoodeeda dhaxa kumo waa Mr Gasperini oo Atalanta tababaraha way wallahi waxa jeclaan lahay 100% in loo geeyo koox kulul oo tababaro u noqdo Mr Inzaghi waa kana wuxuu dheelayaa 3-5-2 walla qadka dhaxa waa la isku haystaa macrakada alwasط waxay ku guulaysto warki doonaa kulay meeshan qadka dhaxa wax ka dhigi doona waa Inter iyo Atalanta ayay gibi ahaan ba ciyaarta kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ay ku laatay Ever markay labada koox ku shiireen inay kala qaataan dhibac ayay Inter waaga hogaaminaysa horyaalka
atalantana waxay ku jirtaa kaalinta afaraad ma dheeradeedana way soo kutubaysa hadii karaa way soo socotaa ayaa inter laga yaabaa inay xogaa dhinac daal iyo waxyaalahaas u yimaado waayo bisha labaad waa taa la socona championka ayaa bilaabanayo waxay isku aadayeen Liverpool waa la socotiin oo laba kulan yacni ingiriiska iyo talyaaniga lagu kala qaban doona ayaa inter sugayo marka waxaa dhici karta inay meeshaas daalal badan kala soo kulanto oo looga faa'iideysto laakiin inter haddii wax kale oo dhaawacyo la kulmin wax ka haysta male horyaalka Serie A ayaa dhici karaa waayo xalay kooxdii kusoo xigtay AC Milan ayaa lafaha laga garaacay markii lagu garaacay gurigeeda waxaa garaacday Spezia ayaa looga bashay gebi ahaanba AC Milan 2-1 markii goosha kor martay AC Milan oo u dhashay xidigeeda Leao ayaa la soo bareejiyay kaalinta labaad loona biisay goosha kale markay ahayd 96 Milan ayadoo raadinayso meelaha ordayso inay guurkan sita ka raadinaysa ayaa ida la dhahay hal dhibac amay ku runtaaba waa diideys saddex dhibac baa ka qaataa la saddex dhibac ordaysay halka dhibac ku dhaafsi amalna ayaa gibi ahaan ba Albertraha 100% ay Milan qalad ka saartay ay dhaheen tababaraha xaqaani ma ahayn waa tababara xaq la'aan ku socday ayo gibi ahaan ba tababaraha asna oo giliin u soo diray risaalad ay odayay heer Milan halaga raali ahado laakiin waxa laga yaabaa in la kulay uquubo oo la kulmi doono oo gibi ahaan ba hore sanadkan Serie A gibi ahaan ba looga jooji doono Albertraha waayo qaladaad badan oo caadi ahayn ayuu kulanka ku sameeyay oo waxaa laga yaabaa inuu yahay taageeraha Inter ayaa dhigi karaa waan garanay waxa kala socday idna shalay FIFA Player afdal laacib fi العالم xidiga sanadka ayaa ku guuleystay Lewandowski Roberto Lewandowski ayaa ku qaaday afdal laacib fi العالم markuu shalay la wareegay koobkii FIFA Player ee xidiga sanadka 2021 ayaa gibi ahaanba 11 ka laacib oo afdal laacib fi العالم oo sanadka uu shidnay ayaa dhigi karnaa waatana waa 11 xidig oo tashkiilada oo dooratay FIFA ayaa dhigi karnaa gibi ahaan waatana Portugal waxa ahay Donnarumma qadka difaaca waxa dheelay Diaz waa xidig heer Portuguese iyo Banucci xidiga heer Itaaliya iyo Alba xidiga Austria De Bruyne iyo Jorginho iyo Kanté ayaa qadka dhex dheelay waa laba heer Chelsea iyo hal City afka hore waxa dheelay labadii oday oo yaanta qadka laga saaro hayo arin lagu hayo waa Messi iyo Ronaldo iyo Holland iyo Roberto Lewandowski ayaa dhigi karnaa xidiga heer Master oo gibi ahaan qadka laga saaray iyo xidiga Madrid Karim Benzema oo tashkiilada la soo galin oo sanadkii hore ay kane dad kulul ahaayeen ayaa dhigi karnaa gibi ahaan intaas inoo agtahay asxaabtayda yar fanta